qaybta saddexaad. halabuurka Soomaaliyeed wuxuu leeyahay indheergaradnimo la yaab leh oo qoto dheer, wax badanna waxbay ina tusaaleeyaan. haddaba qaybtan waxaan ku daahfuraynaa heesta Soo Dhalo Hooyo. heestu waxay ka hadlaysaa ilmo diiday inuu soo dhaafo hooyadii beerkeeda iyo boggeeda, waayo wuxuu ka war helay inuu ku sulci doono meesha loogu yeedhayo, wuxuuna iska diiday inuu soo dhasho isagoo xujooyin soo bandhigaya. umulisooyinkiina baryayaan inuu soo baxo maadaama meesha minka ah wakhtigii uu ku jiri lahaa dhammaaday. sidaa daraaddeed waxaa heestu run ka sheegaysaa dhibta carruurta iyo sidaynaan u dhaadin ee aan idiin dhaafo heesta oo uu ku luuqayn doono La Foole iyo qaar la jiibinayo fanaaniinta ka mida.
ka ilaalinta carruurta shaqooyinka culus carruurta shaqaysa daryeelka bulshadu wuxuu caawimi karaa hoosna u dhigi karaa waxyeelada carruurta lagu shaqaysto soo gaadha sida waxa yiri Constantine Thomas oo ah agaasimaha mashruuca la dagaalanka carruurta lagu shaqaysto ee ururka shaqaalaha adduunka 30 Abriil 2013 ku dhawaad 215 milyan oo carruur ah adduunka oo dhan ayaa lagu shaqaystaa inta badanna shaqooyinkaasi waa kuwo dhibaato ah carruurtana ku culus ama khatar ah oo dhibaato ku ah caafimaadkooda mustaqbalkooda iyo horumarka noloshooda carruurtu meel kasta ha joogeene waa inay helaan xuquuqda carruurnimo ee ah inay ciyaaraan iskuul waxbarasho u aadaan oo ka dhabeeyaan riyadooda ah mustaqbal wanaagsan oo cad hase yeeshee ishortaaga carruurta oo lagu shaqaystaa waa hawl adag oo wajiyo badan leh maxaa wacay qoysas badani waxay carruurtooda u diraan inay soo shaqeeyaan maaha in carruurtu rabto shaqada ee waa inay si khasab ah ku aadaan waxaa dhici karta inay arrintaa khasbayso dhaqaalaha qoyska oo liita hayntooda oo yar waxa ay u baahan yihiin oo aanay heli karin si ay isaga bixiyaan biilasha iyo masaariifta iskuulada lacagaha lagaga rabo haddii aanay ka shaqaysin carruurtooda mararka qaarkood qoysaska baylahda ahi waxay helaan qorshayaal lagu ilaalinayo in ay bartilmaameed u noqon fakhriga waxaase aad u yar qorshayaasha si gaar ah loogu bartilmaameedsanayo yaraynta carruurta lagu shaqaysanayo ee lagu ikbaarayo wax aanay qaban karin laakiin ururweynaha shaqaalaha adduunku ILO cilmi baadhis uu sameeyay wuxuu ku ogaaday in ay leedahay cawaaqib xumo daran balse ilaalinta bulshada mashaariicda la xiriidha sida badan waxay caawiyaan qoysaska carruurtana waxay siiyaan fursad ay ku aadaan iskuul shaqadana kaga maarmaan markhaati furkan waxaa lagu muujiyay warbixintii shaqada carruurta baylahda dhaqaalaha xafididda amuuraha bulshada iyo la dagaalanka ka shaqaysiinta carruurta ee daraasadan cusub ee ururweynaha shaqaalaha adduunka ILO warbixintu waxay xoogga saartay si qiimaysan cilmiyeysan ah mashaariicda ilaalinta bulshada ee wadamo tiro u saaxiib ah iyadoo dhan walba laga eegay shaqaalaysiinta carruurta
shaqada carruurta xaqiiqda iyo jaantusyada 215 milyan oo carruurihii waxay ka qayb qaataan ka shaqaysiinta carruurtan jaantusyadani waxay ka yimaadeen warbixinihii ugu dambeeyay warbixinaha adduun weynaha ee 2010 jaantusyada cusubina waxaa la rajaynayaa inay soo baxaan September 2013 215 milyan waxay ka qayb qaataan waxyaalaha ugu xunxun ee ku wajahan ka shaqaysiinta carruurta oo ay ka mid yihiin ficilada adoonsigu deynu haysasho ama waxa loo yaqaan rahmaad ka dhilaysi u isticmaalka shaqooyinka sharciga ka reeban iyo shaqooyinka u xun caafimaadka iyo badbaadada ama niyadda carruurta 15.5 milyan oo carruur ahina waxay ka shaqaystaan shaqooyinka gudaha boo'isanimo ama jaariyadnimada badida ku shaqaysiga carruurtu waxay ka socotaa shaqooyinka beeraha 60% shantii carruur ee lagu shaqaystaba waxa wax la siiyaa mid kaliya guud ahaan inta u badan wax lama siiyo mushaqaayad waxayna u shaqeeyaan reerahooda cilmi baaristu waxay ogaatay inay si weyn u jirto hoos u dhac ku saabsan carruurta laga shaqaysiiyo meelaha ay shaqooyinka lacagta gacanta la iska siiya ka hana qaadeen in shaqooyinka dartood qoysaska la siiyo lacag billay ah oo shardi looga dhigayo in carruurtoodu iskuulada aadaan mashruuc laga sameeyay Brazil oo lagu magacaabo Bolsa Familia wuxuu ciyaaray door sharaf leh oo wuxuu hoos u dhigay carruurta lagu shaqaysto miyiga iyo magaaladaba warbixintu waxay kaloo ogaatay inuu jiro xiriir adag oo ka dhaxeeya argagaxa caafimaad iyo carruurta lagu shaqaysto marka xubinta qoyska quudisa hawlgab noqoto taasoo ah xanuun la soo darsay ama dhaawac soo gaaray waa in xubin kale damaanad qaadaa xubinta waxyeelowday waxayna isku haleeyaan ka shaqaysiinta carruurta si ay u khafiifiyaan dhaawaca dhaqaale ee ku yimi qoyska wadamada Togo iyo Zimbabwe tusaale ahaan waxaa jira xaddi badan oo sare u kac ah oo ka shaqaysiinta carruurta ku saabsan marka xubinta qoysku xanuunsato ama dhibato Zambia kororku waa 9% waxay kaloo marag furku tilmaamaysaa hoos u dhac iskuul joogidda ah ee xal dhexdhexaadnimada oo doroska mustaqbalka carruurta isku xidhnaanta ka dhaxaysa caafimaadka carruurta lagu shaqaysto waxay muujinaysaa suurtagalnimada cirib dambeed aan wanaagsanayn ee fayaqabka bulshada abid daraasad laga sameeyay wadanka Guatemala waxay muujinaysaa in carruurta guri ku wada nool in ugu yaraan hal mid ka haysto damaanad caafimaad taasoo u muuqata inaysan shaqaynayn damaanad qaadka wax soo saarka dadka gaboobay damaanad qaad buuxa lacagta hawlgabka ah ee la isku halayn karo waxay cadaynaysaa cirib dambeed sax ah oo carruurta lagu daryeeli karo ama facyada badan ee guri ku wada nool inta u dhaxaysa 60% ee agoonta Botswana Malawi Namibia South Africa Tanzania iyo Zimbabwe waxay la nool yihiin waalidiintood warbixinta South Africa iyo Brazil waxay ina tusaysaa in lacagta hawlgabka oo la helaa ay caawiso oo fududayso in lagu shaqaysto carruurta ama laga shaqaysiiyo waxay kaloo hagaajisaa dhiirigelinta iskuul joogidda mashaariicda shaqada ee dadweynuhu helo ee loo fidiyaa waxay yaraysaa oo faa'iido u noqotaa yaraynta ku shaqaysiga iyo ka shaqaysiinta carruurta arrintan waxaa lagu arkay wadamada Ethiopia iyo India soo bandhigida markhaatiyadan waxaa ku cad in cabirada daryeelka bulshadu uu yahay qayb muhiim u ah guud ahaan siyaasadaha loogu falcelinayo ka shaqaysiinta carruurta oo ay weheliso waxbarashadu shaqooyinka dadka caadiga ah ee shaqayn kara iyo sharciyada oo la dhaqan geliya waxay caawin karaan marka xubintu go'aansato in ilmuhu shaqo aado iyo inuu iskuul aado waxayna ugu waxtar badan yihiin marka mashaariicda daryeelka bulshada la jaangooyo oo kuwa siyaasadda haga ay tixgeliyaan sida ugu cirib dambeed fiican ee carruurta loo hagaajin karo siyaasad sameeyayaashu waxay aylo dhawaantan ogolaatay soo jeedin ah aaska daryeelka bulshada taasoo dhiirigelinaysa lagama maarmaannimada iyo xaqiijinta saludhigidda wax soo saarka sugan ee ku taxalluqa nolosha sidaas oo kalena helidda daryeelka caafimaad ee lagama maarmaanka ah waxa kaliya shaqaalaha adduunka
ee wakhtiga shaqada awoodda lagu qiyaasay inay dhan yihiin 20% kuwaasoo heli kara wax ku filan oo ah daryeel bulsho. waxaana muhiim ah in horumarka la sameeyay uu sabab u yahay gaadhidda mashaariicda khuseeya dhammaan qoysaska adduunka. samaynta arrimahan waxay carruur badan ka badbaadinaysaa cadaabka iyo shaqooyinkaas culculus ee carruurta lagu shaqaysto. amuurahan ku saabsan sidee loo horumarin karaa daryeelka bulshada loona soo afjari karaa carruurta lagu shaqaysto wuxuu ka mid noqonayaa howlaha badan ee lagaga wada xaajoon doono shirweynaha saddexaad ee carruurta lagu shaqaysto oo lagu qaban doono Brazil bisha Oktoobar 2013. shirkan waxaa la rajaynayaa in ka badan 1000 dib u eegid ku samayn doonaan horumarka laga gaadhay ciribtirka hababka ugu xun ee ku shaqaysiga carruurta marka la gaadho 2016. qaybtani waxay ku bilaabmaysaa haddaba xagga dhibaatooyinka ee ka shaqaysiinta carruurta markaynu ogaanay warbixinta ururweynaha shaqaalaha adduunka ILO. halhays qof aan aqaanay wuxuu ahaa maxaa ku baxay. haddaba nin iiga sheekeeyey sheekadiisii Kuriimo wuxuu ku yidhi waxaan ahaa rajay oo hooyaday waxay dhimatay anigoo 2 jir ah. markii haddaba hooyaday dhimatay waxa ay kaxaysay ayeeyday hooyo oo aan la noolaa ilaa 5 jirkaygii. ayeeyday dad waxay lahayd hooyaday iyo habaryartay waxayna ii korisay si wanaagsan. markii aan 5 jir ahaa ayaa aabbahay soo kaxaystay wuxuuna ii keenay aayaday oo uu markaa guursaday. wuxuu kaloo keenay 3 walaalahay ah oo uu hooyadood furay. afartayada carruura ayuu isugu kaaya keenay gurigii aayaday ama eedaday. ayaday waxay ahayd qof wanaagsan si fiican ayayna noola dhaqmi jirtay. aabbahayna waana ilaalin jiray annagoo gaajoonayna weligayo wax nooma ay diran. wayna dhargin jirtay run ahaantii. marmar ayaanu ka xadi jiray guriga waxyaabo ay dhigato sida muqmadda subaga iyo sonkorta. waxba nama odhan jirin oo nama ciqaabi jirin. haddaba markii aan 9 jirsaday oo hawd aanu naal dayr barwaaqa ahna ay tahay oo aan hala dhalay ilaaliyo ayaa degmada waxaa yimid nin ciidanka bilayska ka tirsanaa. ninkaasi wuxuu sitay radio kaas oo dadka waqtiga ku cusbaa. dadka degmaduna waxay ku soo ururi jireen meesha uu joogo iyagoo la yaaban biraha hadlaya. muddo markuu joogay ayuu u kacay Laascaanood wuxuuna watay awro u raran. dad qoyskiisa ahina way la socdeen. anoo halihii la jooga ayay isoo agmareen. dabadeedna waan daba galay oo waxa igu soo dhacday meesha biraha hadlaya yaalaan aad. waxaan daba joogo markay soo gaadheen meel gaalkudhel la yiraahdo ayaan istusay waayo meesha igama celin karayn oo waan ka soo fogaanay degmadii. markii aan soo gaadhnay Laascaanood waxaan la kulmay qof dumar ah oo reerkayaga ahayd oo baac mushtari ahayd oo iibsan jirtay ariga ahminka ah. waxayna igu tiri ii raac ariga waxaan neefkiiba ku siinayaa Baysteyne. waa lacag waaga la isticmaali jiray. ariga ayaan markaa muddo u raacayay lacagtana way isiin jirtay. aabbahayna markuu iga daba yimi oo Laascaanood soo gaadhay wuxuu la kulmay anigoo kiish lacaga haysta. lacagtii ayaana siiyey. isna wuxuu igu yidhi waan kuu ducaynayaa shaqayso. sidaana waxaan ku bilaabay shaqadii anigoo 9 jir ah. 12 jir markii aan ahaa ayaan u wareegay shaqada makhaayadaha shaaha halka oo aan muddo 12 sanadood u shaqeynayay. nin makhaayad haystay wuxuuna isiin jiray 2 shilin maalintii. dulmi fara badan ayaan ku soo maray. ninka wuxuu nagu shubi jiray biyo kulul marka uu shaqada wax ka tirsado. nin kale ayaan shaqo ka helay. intaa kadib ninkan dambe wuxuu ahaa nin wanaagsan oo shaqaalaha iska ilaaliya xaqooda wuxuuna na siin jiray 13 shilin maalintii. marka ayaan nolosha bilaabay horumarkeeda. inta aan shaqeynayay aabbahay ayaan taageeri jiray oo la korin jiray carruurta waayo markii dambe aabbahay wuxuu noqday nin sabool ah. ilaahay ayaan mahad u celinayaa ee weligay xoogaygan cuni jiray. waxaan xusuustaa 3 qado ayaa weligay la ii qaaday. cid weli ma aan baryin. iminkana ilaahay ayaan ka magan galayaa baryada bini'aadmiga. taasi waxay ahayd koritaankii nin ka mid ah dadka aan ka soo ururinay dhacdooyinkii soo maray intii ay yaryaraayeen haatanna muutan ilaahay ha u naxariisto oo weliba ku saabsanayd shaqada carruurta laga shaqaysiiyo iyo waayaha ballaaran ee ku gadaaman. waxa ku dhaca ama ay waayaan carruurtu sanadaha ugu horeeya noloshooda waxay leedahay micno weyn oo la xiriira bidqabshinyahooda iyo mustaqbalkooda labadaba. sida caadiga ah bilowga wanaagsan ama xanaano wanaagsan sanadaha ugu horeeya noloshoodu waxay u dhowdahay si aad ah in kuriimadoodu noqoto mid caafimaad leh, fahamka luqadda iyo awood weyn oo waxbarasho.
aadidda iskuulku waxay hogaamisaa lahaanshaha caqli wanaagsan ama haliyey noqoshada taasoo lagu qanco nolosha xaggeeda. malaayiin carruur ah adduunka oo dhan ayaan haysan xuquuqda ay leeyihiin oo loo diiday inay helaan xaqooda dhammaystiran ee ah inay gaadhaan fursado. waa in la hubiyaa in ilmo kastaa helo bilow hagaagsan noloshiisa iyo mustaqbalkiisaba. xaqiiqdii mustaqbalka qoyskooda, waddamadooda iyo guud ahaan adduunku waxay ku xidhan tahay iyaga fayaqabkooda oo laga shaqeeyo ama la hagaajiyo. sannad walba 10 milyan oo ilmayaal ah adduunka oo dhan waxay yihiin wax aan caadi ahayn oo ka cararaya difaac la'aan haysata. kuwa dhashaa waxay noqdaan kuwo loo qaban karo inay iskuul tegidda u diyaar garoobaan. sannad walba tiro badan oon la tirin karin waxaa la joojin karaa oo laga warhayn karaa saboolnimadooda siyaabo kala gedgedisan ee muxibbo, daryeelid, horumarin, fayaqab, nafaqayn iyo ilaalinta ay u baahan yihiin. waayo waxay mudan yihiin inay noolaadaan ama sabad qabaan si ay u koraan horumarna u gaadhaan. ku dhowaad 10 milyan oo carruurihii waxay dhintaan ka hor inta aanay u buuxsamin 5 jirnimadu sannad walba. in ka badan 200 milyan oo carruur ahi ma helaan horumar iman kara oo buuxa waayo ma haystaan iyaga iyo mas'uuliyiintooduba waxyaalaha aasaasiga u ah in carruurtaasi badbaado oo ayna kobcaan. dagaalada dabada dheeraaday iyo masiibooyinka dabiiciga ah ee dadka Soomaaliyeed muddada dheer ku dul habsaday oo aanayna helin daryeel ka yimaada hannaan maamul oo hagaagsani waxay carruur badan oo agoon ah iyo hooyooyinkood badeen dhibaato aan qalin lagu koobi karin. waxay kaloo sababeen isu caalwaa iyo maskax maqnaan dheer oo keentay xilgudasho la'aan dul fadhiisatay kuwii xallin lahaa. dagaalada aan cilmiga ku fadhiini waxay khasbeen khasaare fara badan oo kan akhlaaqdu ugu weyn yahay. waxaana la odhan karaa waxa xitaa lumay oo meeshaba ka baxay isu turkii, isu nasdeexayntii, isu naxariisashadii iyo wixii la halmaala oo wanaag iyo qiyam fiican ahaa. laguna yiqiin taariikhda abka soo gaadhka ah ee ummadda Soomaalidu lahayd iyadoo ka soo qaadatay ama ka soo dhirindhirisay islaamka ka soo jeeday diinta samaawiga ah ee eebaweyne inoo dooray iyo tarbiyadii suubanayd ee nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. waxaa dhacday in badan oo carruuri markay waayeen wax daboola baahidooda aas-aasiga ah ay magaalooyinka dayacdareereen kuna khasbanaadeen inay nolosha la harjadaan. tusaale ahaan hablo da'yar oo Soomaaliyeed ama hooyooyin agoonley ah waxay miciin bideen inay noqdaan adeegtooyin ama jaariyado aan haysan heshiisyo damaanad qaadada ku fadhiya. ayna ka soo gaadhaan dadka ay u shaqaynayaan tacadiyo aan la qiyaasi karin iyo shaqooyin aan waqti xadidan lahayn isla markaana aan qiimaha wanaagsan sinaba u goyn karin. ilayn ma jiro sharci ilaalinaya ama loo shaqeeye wax garanaya oo xaqa iska ilaalinayaaye. shaqooyinkaasi waa kuwo badan oo aan jaan go'nayn sida dharmaydh, cunto karin, suuqa ka soo adeegid, guryaha nadiifin, carruurta ilaalin iyo waxyaabo kale oo la jira. kuwaasoo aan qof wada qaban karin muddo yar gudahood noqonaysana shaqooyin culus, igbaarid ama jirrabaad iyadoo ayna u dheer tahay canaan, cambaarayn, dil, faraxumayn, hatidid iyo ugu dambaynta oo loo badido wixii uu u dhib mutay ee ahayd ajuurada awalba oo ku go'da ahayd. mar la baadhay mushaharooyinka lagu shaqaalaysiiyo dadka aan ka soo hadalay waxaa la ogaaday inay ugu badan tahay $50 ugu yaraana $10 oo aan waqtigan cidna wax ugu filayn. sidaa oo kale kuriyada loo baahnaa inay berri waddanka anfacaan ayaa baalashle, koola dhuuqe, makhaayad ka shaqayste, qaadgaraabayste, istaanjooge, qorisite, qof ilaaliye ah ku soo ururay. dhammaan dhallinyaradaasi waxay dhex joogaan khatara la mid ah daaman libaax dhexdood. haddii aan in yar ka milicsanno taariikhda faca weyn ee Soomaalida waxaa soo ifbaxaysa in ay soo jireen ahayd ka shaqaysiinta carruurta iyagoo aan diyaar u noqon shaqo. waxayna sabab u ahayd hawsha adag ee bulshadu ku jirtay oo ahayd ama u badnayd xoolo dhaqashada oo ficliyan ah hawl aan dhib yarayn. waxyaalaha ugu horeeya ee carruurta reer guuraagu ku indhadilacsadaan ayaa ahayd in ilmaha oo wax ka yar 2 jir looga tago geedka guriga inta lugta lagaga xidho xadhig wehella maqasha looga dhigo sababtoo ah hooyada oo biyo raadisay ama xoolo lumay baadi doon ugu maqan awgeed amaba dan kale oo muhiim ah lagana yaaboba
inay mid kale xambaartay ama caloosha ku sido tegidda maqnaanshaha looga tegay waa hawl u eg inuu shaqo ku dhex jiro da'aha ka weyn 2 jir waa inay maqasha raacaan oo aan aalaaba guriga ka fogaan waana bilowga shaqada gabdhuhu waxay hawl adag bilaabaan markiiba iyagoo hooyadood ka caawinaya xadaafiirta nolosha ee ay dhex muquurayso run ahaantiina habluhu waxay qabtaan hawl dheeraad ah oo la kowsata imaanshahooda dunida guudkeeda waxaana u dheer u turid la'aan waxbarashada oo aan loogu dadaalin gudniinka fircooniga oo masiibo ku ah hibada aabuhu caruurta wax u hibeeyo oo aan iyaga sida badan wax loo hibayn waxaan ka wadaa waxaad maqli kartaa wiil leh hashaasi sacaasi ridaasi ama laxdaasi waa tii la iigu xudun xidhay hablahaase maqli maysid sida oo kale dhanka guurka aabaha Soomaaliyeed wiilkiisa wuu u dhisaa yaradna waa ka baxshaa balse gabadha inuu iibsaduu rabaa oo aan waxar jabani ka raacin waxa la yiri ninba gabadhiisii yarad u doontay markaas hal geela laga soo siiyay malaha kan guursaday baan wax haysanay markuu soo noqdaa la yiri war hebel maxaa lagu soo siiyay yarad markaasuu yiri naasa kuuskuusan hal ka tagtay hal kalena laga soo hel wuxuu ka wadaa hashii loo lisi jiray caanaheedii waa iga tagtay mid kalena gabadhiisiiba gooro aan kala fogfogeyn wax u soo doonatay sida suugaantan ka muuqata suu yiri waliga ayaamaha badbaad kale ilowdaaye wataan isniintii dhaweyd awrta ku raraye maantana maxay ka agdhigay saw 4 maaha akhristayaasha sharafta lahow kama wado in Soomaalidu dad xun wada tahay ama aanay ihsaan u falin caarkooda ee waxa maragma doonto ah in ay kala fadilnaayeen labada jinsi ee aadanuhu Soomaalida dhexdeeda sida oo kale xoolo raacidda baadidoonka xoolaha lumay xirgeynta noocyo xoolaha kamida oo meesha marka la degan yahay ku daaq xumaysta biyo doonista xoolo waraabinta xoolo xawawarinta geediga iyo in kale oo badan ayaa ahaa shaqooyin iyo hawlo adag oo caruurtuna qayb libaax ka qaadato marar badan waxaan sheekooyin ku maqalaa caruur iyagoo hawl ku saabsan xoolo dhaqashada beer falidda kalluumaysiga beeratumidda baabuur samaynta iyo wixii la halmaala galay khataro sida cidla u dhixid bahala sigid haraadid gaajoon daalid ambasho asqoobid birijarid iyo kuwa kale oo badan la kulmid si aynaan mawduuca uga bixin una noqon kharajal mawduuc geedi wuxuu yiri aniga iyo wiilkayguba waxaan ku soo kornay rajoonnimo iyo in labadayadaba lagu soo shaqaystay oo aan tan wiilka ku horeeyay masayr ay iga masayrtay oo aan waxba ka jirin ayaan ku kala tagnay dhalinyaranimana way haysay waana wax dhaqanka Soomaalida kamid ah waayo dadkeenu kama baqisoodaan amuuraha guurka iyo gogosha ku taxalluqa wiilkii markaanu kala tagnay waxaan ka codsaday inay hayso anna aan biilkiisa bixiyo markii hore way yeeshay muddo kadibse aabahay oo reer guuraa ah ayay ku xoortay oo kaga tagtay anigu maadaama aan askari waliba furin joog ah ahaa wiilkii xiriir nama dhex marin ismanaanan arag hadduu koray oo xoog yeeshayna waxaan ka war helay inuu culal duulaan ah oo Soomaalida diinta isku haysata kamida uu qori u qaatay aad baan uga xumaaday waayo waa marka hore waxay isku haystaan oo isku dilayaan lamaba garanayo waa tan labaade aniga qori sidii jiray oo moodayay inaan dal ilaalinaye soo kama warqabo xaalkaygu meeshuu ku dambeeyay taasoo ahayd waxaan ku waqti beelay in xagga qaliinka loo rogay waa kelmad la isticmaalo marka wax wixiisa xun lagu tusayo soo waxaan ka shaqaynayay ma noqon madax dalkii baabiinaysa iyo shacab wada tuug iyo daba dhilif shisheeye ku shaqayste ah soo tacab qasaar xaalku muu noqon waxaan moodayay dad iyo dal meel u wada socdee soo kaaf iyo kala dheeri ma aha haddaan ogaaday in wiilkaygii lagu shaqaystay aan oo kale ah rag awrkacsi ilahi doonayaan inay awrkooda ku kacsadaan soo xaalku ma noqon wiilka raadi oo horaad u kharibtay noloshiisa iminka daba qabo haddaanu isu nimi oo 2 nin oo isleegnahay waxaan u bandhigay inaan rabo inuu wax barto anna aan xilis ka saaro buugiisa qalinkiisa hooyigiisa iyo raashinkiisa iskuul baan geeyay oo kagama hadhinay anna qalin iyo buug iibsaday oo barbar fadhiistay muddo yar haddaanu dadaalay wuxuu bartay barbaar isaga leeg oo qaarkood dhibka isaga soo maray aanu soo marin warkaalay nala ciyaar warkaalay ciyaalla kale nagula duul waxaasaa loogu baaqay isna dhexduu u galay haddaan waaniyey waanadii waa ku aroori weyday labadiisii dhagood inaan dagaalanay noqotay haddii is afgaran waayimi
oo ilayn dad soo wada koray ama dhaqmay maanu ahayne cindigiisaba waxaa galay ninkan muxuu kuu kontaroolayaa wuxuuna saaxiibadii ka codsaday war ha lay dhoofsho oo awowgay ha lay celiyo ninkan garanba maayo waa Kenyaati qafaal buuna igu haystaaye meeshaanu joognaa waa xeryaha qaxootiga dhibaatayga dheh aniga xaalkaygu wuxuu ahaa hooyaday allaha u naxariistee markay 3 qof dhashay dhimatay markay dhimatayna hooyadeedna kaxaysay 3dayadii hooyadood dhimatayba aabaha iyo xididkiina dad isku wanaagsan ma ay ahayn oo waxba la kala tirsanayay ku saabsan xurmada xoolaha yaradkan u jeedaayay yeelkeedii ayayo waana dar yeeshay oo guri iyo xoolo ay haysatay oo meel tuula ah ku yiilbay nala tagtay aabana waa tangeela loogu heesaa geerida haween guud la fidho iyo guursi laga qaad geeridaadana gaawo maran iyo gaajo laga qaad geeridaydana guryo baay iyo goblan laga qaad qoyantiiba waa guursaday oo reer kaluu samaystay muddo hadduu naga maqnaa oo reerkiisii cusbaa ku mashquulsanaa ayuu soo kacay oo na soo doonay wuxuuna yidhi carruurtayda ha lay siiyo ayayadayna waa diiday intii murankaa lagu jiray ayaa mid naga midii dhintay oo ilaahay oofsaday amuurtaa dhacday ee rabbaaniga ah ayuu kiis ama dembi ka dhigay oo wuxuu yidhi ilmahayga waa la dilay ee qadar eebbe kuma dhiman xumaan baa meeshii soo gashay iyadoo aan awal horeba la isku wanaagsanayn taasina waxay keentay in la qaybsamo oo dadka qaar yiraahdaan carruurtiisa ha loo celiyo qaarna yiraahdaan ha loo diido almuhim aniga la igu celiyay gurigiisii iyo reerkiisii cusba ayaday ama eedaday qofba siduu u yaqaan waxay ku curatay wiil dad kalena waa dhashay wax la yaab lahaa wiilkii markuu koray oo wax kala gartayba anigii buu ila dagaalamay haddaan dilo hooyadiiba halkan u taagan oo anna iga jaraysa waxaan ku sameeyo hadduu wax igu dhufto kuma dhufan karo hadduu marada igaga kaadsho kama ceshan karo aabbaan u dacwooday markaasuu yidhi iska dhici oo garaac oo iska celi sidii baan yeelay taasina waxay noqotay in iyadii iyo aabbo isqabsadaan oo gurigiiba rabshad iyo dagaal joogta ah isu rogo ka gadaala marna ayayaan u tagaa marna aabba ay kaxeeya muddaan sidaa ku noolaa markii dambena nin adeer noo ahaa ayaa isoo kaxeeyey oo iskuul igu daray markiiba se askartaan noqday oo furinjoog baa noloshayda badideedii ku dhammaystay haddii aynu ku soo jirnay sheekooyin suugaan iyo cilmi baadhis ku wajahan carruurta iminka waxaan gudagelaynaa sheekooyin ku saabsan dhibaatada carruurta marka ay dhacaan dagaaladu noocay doonaanba ha u dhaceene haddaba sheekadan waxay ku saabsan tahay wiil yar oo dagaal dartii dib u maray iyadoo libaax waardiye u noqday wuxuuna yidhi anigu waxaan ahaa 6 ama 7 sano jir adeerkay ayaan la joogay meel tuulo yar weyn ahayd wiil ayaan isku loox ahayn wuu iga yara xoog weynaa waanan ka cabsan jiray maalin maalmaha ka mid ah ayuu makiinad igaga xariiqay sanka dhalinyaro aanu isku reer ahayn ayaa markay maqleen dhibaatada soo gaadhay ii yimid waxayna igu qalqaaliyeen inaan wiilka ka argoosto waxaan ku yidhi waa yahay makiinadii iibsha way ii iibsheen markaa ayaan gudagalay sidii aan uga aarsan lahaa sida caadadu ahayd marka la gaadho waqtiga quraacda waa nala fasixi jiray maalinbana midkayo ayaa loo xatiirin jiray kan kalena hadhow ayuu soo qaadi jiray ilayn dan baan leeyahay waxaan ku yidhi adigu tiiri looxa anna waxaan soo qaadayaa marka dambe looxii buu qaaday oo la dhaqaaqay intuu sii jeeday ayaan makiinadii la soo baxay oo la dabagalay markuu tiiriyey looxii oo soo jeestay ayaan anigoo diyaara yara sabaqaya isha ilaa dhabanka ku dhuftay oo jeexay dabadeedna waan cararay oo guri noo dhowaa baan galay sababta oo ahayd reerkayaga oo magaalada ku yaraa awgeed inanka aan dhaawaca u geystayna reerkooda ayaa magaalada ku badnaa anigu markaa waxaan la joogay adeerkayna safar ayuu ku maqnaa oo magaalada ma joogin haddaan gurigii ku jiray maalinta inteedii badnayd wiilkii iyo reerkoodiina loo taag waayey ayay dantu khasabtay inaan magaalada ka cararo inta adeerkay soo noqonayo oo hawsha xal loo helayo waxaa la igu daray nin wadaad ah oo miyiga qardhaasaha ka qora oo galabtaa u sadcaalay reer guuraa magaalada ka fogaa waxaana laga codsaday inuu ikxaysto oo inta adeerkay soo noqonayo uu ila meeraysto reeraha uu ka waliimaysto anna quraanka ii dhigo wuu yeelay inuu ikxeeyo waanu israacnay gelinkii dambe oo dhan buu ila sii socday fi dambe ayaanu reera u nimi daalkii aan daalanaa ayaan jiifsaday garan maayo in wax laysiiyey iyo in kale haddii wax laysiiyeyna ilmo dheelalowsan wuxuu cunaa micno badan kuma fadhiyaan
salaadii horu ila dhaqaaqay maalintii oo dhan ayaan sii soconay goor ay tahay casar gaaban ayaan u nimi waxar dhalatay oo meel cidla taagan waxaan filayaa inay ka dhacday reer guuray markaasuu yiri wadaadkii soo qaad waxarta hadaynu ka tagno waa laynagu ciqaabayaaye waxartii baan qaaday haddaanu in yar soconay roob ayaa noola yimi oo dhulka nagu jiiday gabaldhici ayuu naga qaaday roobkii annagoo qoyan daadkiina socon kari weynay waxaanu u leexanay buur yar oo nagu dhaweyd markaa geed lebi ah hoostiis ayaan fadhiisanay qorraxdiina waa dhacday haddaanu meeshii fadhinay in muddo ah waxartiina hoosta igaga naban tahay ayaan maqlay sanqadh wadaadkii ayaa i weydiiyey oo yiri ma garanaysaa sanqadhan waxaan idhi maya garan maayo wuxuu yiri waa libaax dabadeedna wuxuu ku booday geedkii oo koray geedku wuu gundhoobnaa markuu sallada u baxay ayuu gacantii hoos u soo taagay oo yiri war gacanta soo taag gacantaydii way gaari weyday gacantiisii markaasuu yiri dhagax soo qaado oo isku soo dheeree balse isku dagaasi waa shaqayn waaye wixii soo sanqadhayana waa soo dhawaaday geedka kiisii hoose ayaan iska fadhiistay waxartiina hoostayday soo gashay wixii soo socdayna markaan waa ii soo muuqday oo meel aan ka fogeyn ilaa 5 mitir ayuu istaagay waan eegay oo midab cadaan ah ayuu ila muuqday in muddo yar ah hadduu meeshii taagnaa ayaa sanqadh kale soo baxday markay soo dhawaatuu kii hore dib u noqday oo wixii soo sanqadhayay ka hortegay labadii waxba way isa soo raaceen oo meeshii kii hore tegay bay wada yimaadeen dabeedna way fadhiisteen anigu muddo yar kadib waan seexday oo qabowgii dhulka galabta roobku helay daalkii iyo baqdintii faraha badnayd waxay isu bedeleen hurdo mar aan ku qiyaasi karo waa soo dhawaadkii ayaan dareemay kulayl hoosta igaga jira indhahan kala qaaday oo meeshii aan markii hore u jeeday eegay mise labadii bahal mid quraa fadhiya meeshii docda kale ayaan dhugtay mise dhinacaygu fadhiyaa oo waxa aan uumiga kulul ka helayaa waa neeftiisii markaasaan miyir beeray oo meeshaydii ku gamay waagu markuu bariyay ayaan misna indhaha kala furay oo eegay kii hoosta igaga jiray markaasuu istaagay oo jimicsaday oo u dhaqaaqay meeshii kii kale fadhiyay oo intuu u tegay kiciyay oo ay wada jir isu raaceen cabbaar kadib ayaa wadaadkii soo degay oo yiri ina mari waan dhaqaaqnay oo haddaanu in yar soconnayba waxaan aragnay qiiq meel dhow ka baxaya waan gaadhnay oo waxay noqdeen reer aan aqaanay markaasaan oohin afka furtay oo ninkii reerka lahaa ku yiri wadaadkan ayaa libaaxi siiyey wadaadkii ayaa yiri waxaan akhriyay alamtara liilaaf yaasiinka oo xalay oo dhan xirsi xidh baan ku jiray sidaasaana libaaxu ku daayay wiilka warkiisii baa la rumaystay waayo wuxuu ahaa wadaadkii reeraha casharka u tufi jiray balse reerkii baan kaga hadhay ilaamaa adeerkay ka soo noqday safarkii taasoo uu dhammeeyey xaalkii dagaalka ee tuulada nin baa ka sheekeeyey sheeko uu ayeeyadii ka maqlay ayeeyada oo ku dhalatay xarun daraawiisheed waxayna sheekadani u dhacaysay sidan waxaa dadkayagii ku dhammaadeen halgankii daraawiishta badankoodii xaruntiina waa xumaatay oo waxay noqotay meel sii baaba'aysa waxaan goostay inaan xarunta ka tago oo 2 meelood oo waagaa loo carari jiray miduuna aado labada waddo ee lagu baxaana waxay kala ahaayeen waddo hawd aada oo walwaal ku dhacda iyo waddo galbeed quman u kacda oo burco ku baxda burcada oo gaala fadhido waxaan qaatay gudin mindi iyo dheel gudinta inaan ku quwaaxsado ayaan u sitaa dhiishana inaan quwaaxa ku gurto si aanu iga qalalin mindidana inaan wax iskaga celiyo ugu talagalay taleex ayaan ka ambabaxay waagaana bahalaha waxaa ka cabsi badnay dadka oo dhulkaan marayo waxaa ku nool qowlaysato codla joog ah waxaan tegey meesha geeda midha leh la yiraahdo oo dad dabata ah ay ku nool yihiin maalmo ayaan la joogay dadka dabatada ah waan ka tegey markaan nastay oo ayaan la joogay qorshaha aan dhigtay wuxuu ahaa inaan maalintii dhuunto habeenkiina socdo waayo waxaan ahaa ruux dumar ah oo weliba da'yar waxaan filayaa inaan 13 sano jiray biimaha aan marayana waxaa igu kalifay dhibaatadii dagaalada waxaan goostay inaan wadada walwaal aada qaado oo walaashay baa deganayd dadkayaguna waxay ka soo jeedeen xagga iyo dhulka Soomaali galbeed haddaan habeen soconayo oo fidada hawdka loogu baxo ku baxay ayaan dareemay in sanqadhiila socoto waan naxay oo qaboobay socodkiina ma dayn oo jeegadan taagay in yar dabadeed
ayaa sanqadhii soo gaadhay dib baan jaleecay mise waa libaax sheekona waxaan ku hayay haddii cidla libaax kaa helo oo uu dhinaca midigta kaa maro wuxuu goostay inuu ku cuno hadduuse bidixda kaa maro waa ku nabadgeliyey nasiib darro wuxuu iga maray dhanka midigta oo hore ii dhaafay isagoo degdegaya markaasaan waddadii ka leexday oo dhinac isu qabtay laba geed dhexdoodaan istaagay isagiina sow intuu hore u orduu waddadii fadhiistay hadduu waxba waayuu dib u soo laabtay oo raadkaygii soo qaaday si kediisuu isagoo ordayay iga soo duldhacay wuu naxay anna waan bededay markaasaan gudintii dhulka ku xariiqay anigoo wacad la dhiganaya indha cascas buu igu eegay waana miliqsaday oo labada qowlal iska leefay misna wuxuu eegay waxaan xariiqayay oo marba dhan eegay in yar dabadeedna wuu dhaqaaqay anna waan dhaqaaqay dhankaan u socday wadnahayguse ma garra docdayduu socday oo weliba dhowr tallaabo ii jirta waxaannu soconnaba geed baan fadhiistay isna waa tegey oo cabbaar kadib wuxuu ii keenay dabataag uu surka ka soo jebiyey welise nool oo lugaha ka firigfirigsiinaysa waan gowracay markaasuu dhiiggii ka dhabaqsaday oo geed igu dhow u hurdo doontay dab ayaan madag ka shitay dabataagtiina lug baan ka goostay intii kale oo aan calooshii ka ridayna geed yar baan u saaray markaasuu u yimid oo jajabsaday markaa waa isku dadownay oo baqdintii ahayd inaan habeen socdo waa iga ba'day maalintii baan socdaa ileen wehel baan haystaaye quwaaxaygana waan quwaaxsadaa oo dhiishaydaan ku gurtaa markaannu 2 maalmood soconnaba neef ugaadha ayuu keenaa waxaan ka goosto mooye waxa kaluu cunaa habeenkii bowdadiisaan barkadaa inuu in yar iga fogaado ma jecli wuxuu ii yahay saaxiib qaali ah waxayse ugu darayd markii habeen libaaxyo kalena heleen oo dagaal dhacay oo laysla fiigtay layslana fogaaday gooha iyo ciduna batay oo goordhow mid soo noqday makaygiibaa mise waa mid ka mida kuwiina weeraray ilaankayga sumadiiguma oole wadnaha iskay taagi gaadhay hadduu soo socday agtayduu istaagay oo jimjimicsaday markaasaan dareemay inuu saaxiibka yahay oo ka soo adkaaday kuwii la dagaal galay ilaah waa ku qaadin baan uurka ugu duceeyey waxaannu sii soconnaba markaannu u soo dhowaanay walwaal ayuu orday oo xaggii aannu u soconnay ku orday in cabbaara dabadeed buu soo noqday oo xaggii aannu ka nimi ii dhaafay waxaan u malaynayaa inuu soo hubsaday in meeshii cidii ugu dhoweyd uu i keenay waxaa xusid mudan intii aannu soo soconnay wuxuu kaalmaysanayay dhegihiisa oo wax meel dheer ka dhacayaba wuu la socday taasoo aan ku ogaaday dareenkiisa isbedbedelayay